araggu ma ahan keliya qofka inuu wax arko laakiin noloshiisii iyo qiimihiisii iyo dhaqaalihiisii iyo caafimaadkiisii kale ayaa ku xiran. Marka aragga haddii la beelo waxaa la ogaaday xataa cimriga qofka inuu degdegayo. Cilmi baarisyo badanaa la sameeyey, waxaa la dabagaloo la raacay dad aragga beela iyo kuwa aan beelin oo isku da' ah, isku meel ku nool, isku dhaqaale ah. waxaa la ogaaday kuwii aragga beela inay ka cimri yaraayeen kuwa kaleeto. Marka indhala'aanta ma ahan keliya in araggaa beelaysid, laakiin waxaa halis u noqonaysaa jug inay kugu dhacdo, waxaa weynaysaa dhaqaalihii aad ku shaqaysan lahayd. sidoo kale qoyska qof kaloo ka mid ahna waxaa ka lumaya waqtiga. waxaad dareemi kartaa Afrika annaga ku noolnahay, tuulooyinka markii la joogo haddii qof qoyska ka mid uu indho beelo, qof kaleetoo dhallinyaro ah ayaa la siinaya ayeeyo ama awow hadduu yahay, si qofkaa u wado oo meelaha u geeyo. marka ma ahan keliya qofkii indho beelay culays inuu dareemaya, laakiin qoyskiisii iyo bulshadii ayaa dareemaya. marka maalinta annaga muhiim ay noo tahay. indhaha waxaabay noo qabtaan ma ahan keliya aragga laftigiisa ayaa wuxuu u kala baxaa aragyo badan. marka dadka caadiga aragga la weydiiyo waxbaan arkaa keliya ayaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo, laakiin annaga marka araggaan baarayno qaybo kala duwan ayaan ka baarnaa. aragga fog, meesha fog qofka inuu wax ka arko waa aragga dhow iyo inuu wax aqriyo waa arag kale. midabada inaad kala fahamtid, cagaar iyo buluug iyo gaduud iyo waa arag kaleeto. labada indhood inaad wax ku wada aragto isla markaana hal shay aad aragto waa arag kale. habeenkii hadda nalka haddii la damiyo waqtigay kugu qaadanaysa inaad fahamtid ama dark adaptation la yiraahdo waa arag kaleeto. aragga iyo muhiimadiisa marka iskuma sheegayno, waxa weeye waa xubin lixda lixaad oo bani'aadanka xubin weyn oo ka mid ah. marka dhammaanteen waxaan iskugu baaqaynaa, maadaama la yiri indhala'aanta inta badan waa wax laga hortegi karo ama la daaweyn karaba 80%, in marka qof walba uu ku baraarugsanaado indhihiisa, isla markaana haddii uu wax dareemo uu la soo xiriiro bahda caafimaadka indhaha shaqada ku leh.